بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا حلقتين لبعض برنامج كيني زدني علم أقوني كوبي. هدو ربي إدمو برنامج كان ونسوكو بدون إن شاء الله حينك أهل دونا فوائد الصوم إنه نسكيس تاجدون لبعضنا. فوائد الديني هينو لي هي أجر كاينو كحرينو iyo caafimaadkii noogu jira intaynu soomanay insha Allah taala intaa waynu ka heli doonaa waan ogsoonahay inaanu rabadaana ku jirin kolley waxay ku odhan karaan dadku ma rabadaantii waa soo dhawaata maanta fawaa'idu soom waa laga hadlaya waa maya rabadaanta dhawaanay naga baxday waynu la soconaa haddana waxaa jira dadku maalimo qaar ay soomaan sida isniinta khamiista iyo maalimaha gaar oo ku dhex jira sanadkaas waxaan kusoo eegi doonaa insha Allah taala soomka haddaba ha noqdo bisha ramadaan ha noqoto maalimaha faa'iidada inuu leeyahay jihada koobaad ee isku istaagi doona waxa weeye ajarka iyo xasanaadka inuu leeyahay insha Allah taala iyo manfacaadkiina aakhiro uu soomku inuu leeyahay waxaan kusoo qaadan doonaa afar misaal insha Allah taala afar tusaale oo kooban oo qof waliba fahmo si la iskugu faa'iideeyo bulshadii كلي فائدة صوم كسوق وبكرمين هذين ما أنتوا فريسانين تاني حين ربعاً تهدور ساعات أو وحين بحث فربضان رادي فربضان لكن برنامج كانوا حابو طلقا لنا قصة خلاص إن شاء الله تعالى فإذا كواد إنه لي الصوم كوحوي الله سبحانه وتعالى يا أجر كيسة طوش يسكساري ومحولي فإذا إلا الصوم عملي لهم بالله كصريح إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به صوم كأني أسكالي cabdigiigan anaanahe ka abaalmarnayn yacnihii qofku waxa uu cabitaankii cunitaankii shahwad guditaankii oo dhan u joojiyey waa min allaahi ilaahay daraaddii buu u joojiyey oo ilaahay daraaddii ayuu u joojiyey idan marka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay soomka ana ajirkiisa dusha saaray wuxuu allah subxaanahu watacaala dusha iska saaray ajirkiisana haadaa waxa weeye wax aad u qaali ah oo aad u weyn waxay noogu filan markaa dadka saa'imiinta ee sooman in ay ku bishaaraystaan soomka ay soomayaan inuu allah subxaanahu watacaala yowma alqiyaamah uu ka jazaa'isiin doono ayna nigeystaan taa waa faa'iidada ugu weyn dadka saa'imiinta ay inay qalbiga ku hayaan ay tahay faa'iidada labaad xadiiska okii ku lahaa nabiga calayhi afdal salaatu waatamu tasliim man qaama ramadaana iimaanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك وإستاك بشهر رمضان يسوع إيمان سن ويقين سن واحتسابا أجرنك الضلبية غفر له ما تقدم من ذنبه حلول عفا ذنبه وسوسا نيوتا دنوت مركا ويسكو جيران وينقرنينا وتدكو ذنوب صغيرة يذنوب الكبيرة جيرا مكا صغار تودن الله سبحانه وتعالى وضافا إلا الكبيرة هو كبائر تدنبيد وين حوب أهين توبوا بأهين الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ونضاف إلى سبحانه وتعالى الذنب كوين يكون يرضى إذا مركا صومك قفك نيجي ويستاجي وديار قلوبه نيستا إنه أجر كهل دون إن شاء الله تعالى وسكوسي دي يعني preparation فربان سميس خد ديار قرية حوي ذنبي يسهر على الرفع هذا فضل عظيم دائما هاي السلامة فضل آد وفربض وين آد وين إذا مركا حلو لوجو بهاي هاي بشهر رمضان هالنقطة معلمها كلا هالنقطة إنه محين تحسين إنه أوديه قلوب إن شاء الله تعالى تحسين وفائدة الله بعض إنه لا يصونك وحاجة دين تينا يأجر كينو كحلين فإذا صدحات إنه صوكو من أيضا إن شاء الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام سوى الله تخلينا يدل يرتوى كيري يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء يعني شباب وقفكي كلا يبا هذا يوحبها جور كلا حريرة هايسك جور سدين أو هايسك جور سدين فمن لم يستطع لكن كيان أودينه أرمها صدنا أودينه فعليه بالصوم صومه واجب محيا الصوم محو واجب ونقضي فإن له وجاء waxa uu yahay gaashaan buu yahay soomku gaashaan buu yahay oo qofku markuu cunitaankii cabitaankii ka tago dhalinyaro weyn nahay garanaa waxa hoos u dhigmaya dareenkii iyo waxyaabihii badnaa eriyay noo kaxaynaya xagga kale yani guurkiina ma awoodno yani marka waxaa laynooga baahan inayna soomo wajaa uu inoo yahay soomku
wuxuu inoo yahay gaashaan. Idan markaa waxaa lainooga baahan yahay inaynu ogaano fawaa'ida faraha badan ee uu noo leeyahay. Sinagoo soo koobayna haddaynu iska istaagno dhinaca kale ee caafimaadka uu soonku inoo leeyahay, daraasooyin fara badan oo kumanaanka fara badan baa la sameeyey oo dad muslimiin gaali bay sameeyeen. Marka waxaynu ka soo qaadanaa dhowr insha allah. Daraasadoodka waxaa koowaad ka mid ah soonku waxa uu faa'iido u leeyahay niyadda, oo waxa uu dhisaa niyadda. Niyadduna waxay sii taageertaa maskaxda. Daraasaadda waxaa lagu sameeyey Dubai, waxaa la sheegay soonku inuu kor u qaado heerka xasuusta qofka iyo kordhinta waxbarashada, maskaxda ka fikiraysa waxbarashada iyo horumarka. Marka idan soonku waxyaabo fara badan oo daraasadaas ku lifaaqsanaa oon ka akhriyay waxa uu kor u qaadayaa oo taageerayaana maskaxda, waxayna kordhinayaa oo kor u qaadayaa sidoo kale xasuusta qofka. Intaa hayna iga filnaatay insha allah, iniga akhrisan doona. Qodobka labaad ee soonka faa'iidadiisu waxa weeye dadka macaanka leh sidoo kale waxa uu ka khafiifiyaa macaanka. Oo daraasad iyadna la sameeyey, waxaa lagu sameeyey 10 qof oo qaba xanuunka macaanka kiisa labaad. Waxaa lagu ogaaday soomka muqatica, soomka kala maalimaha ama soomka xidhiidhka inay si weyn oo xaddi aad u weyn ay u yareeyaan qofka macaanka qaba jirkiisa aad ugu yaraa, sonkorta aad uga yareeyaan. Hada iyaduna waxa weeye faa'iidada uu u leeyahay dadka xanuunka la dhiban. Allahna ka caafiyo inta islaamka dhammaantood. Sidoo kale soomku waxa uu faa'iido fara badan u leeyahay. Waxaa kaloo hoosna u dhigaa miisaanka qofka culus oo kale ka cabanaya miisaankiisa. Saas oo kale soomku waxyaabo badan hoos ayuu u dhigaa miisaanka, oo in khafiif ayuu ka dhigaa oo caafimaadkiisa uu sax ku yahay. Idan daraasooyinka kasoo gaarsiin kara mayn haddaynu maanta si dheereyno. Sidaan ku sheegnay barnaamijkeena mid kooban baynu insha Allah taala ka dhigaynaa inuu ku kala faa'iideysano. Inaha ayaynu ku soo reebaynaa. wixii dhimana description-ka insha Allah taala soo dhigi doonaa. Ilaa huna naqtim insha Allah. Xagga baynu khatimi doonaa barnaamijkeena labaad ee zidni cilman. Haddii aad wax fikira qabto ama in wax laga bedelo barnaamijka sida asxaabta soo codsadeen, codkooda kala gaaban yahay yiraahdeen, markaad noogu soo qor commentiga saan noo saxda insha Allah taala. Akaabinu ku tujinaa. Assalaamu calaykum.